كميدا قربة joogta wadhalatay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan qurba joogta deegaanka Buuhoodle ayaa deeqda waa soo gaarsiiyay isbitaalka dhexe ee magaalada Buuhoodle sida maanta telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel u sheegay Caawil Cabdi Hiirad oo kamid ah mas'uuliyiinta caafimaadka ee deegaanka Buuhoodle isla markaana xaruntaasi caafimaadka ee deegaanka Buuhoodle ka howlgala waxaana Caawil sheegay inay deeqdan ay soo gaarsiiyeen qurba joogta deegaanka Buuhoodle daawada ay xiligan baahi weyn u qabeen bar u lahada telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel maanta salaamaya qurba joogta ama maxaa la yiraahdaa biyafarada ku nool dibadaha Yurub Ameerika iyo meelaha khayraad ka buuxo ee u dhalatay gobolka Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan kuwa u dhashay gobolka Cayn kuwaas oo maanta aan ka helay taageero aad iyo aad u fiican daawooyinka halka ku aragtaan ee qolkaasi buuxo qaarkoodna wali karaatuntii ku jirto aanan soo bixbixinin dawadaas oo tayo iyo tiraba leh markana qora maaha intay noo soo direen waa dhowr jeer oo hore daawadan waxa laga soo diray dhowr meelood oo dibadaha waxa kamid ah England baa kamid ah waxa kamid ah diyaariyada Holland baa kamid ah waa dadka isugu tagay meel bay soo wada martay oo la isku soo daray laakiin waxa oran karaa dhamaan ama Mareykan ha joogan ama Ameerika ha joogan ama Carabaha ha joogan qurba joogta reer Sool Sanaag iyo Cayn baa soo dirtay daawadana waa daawo badan tayana leh su'aal aad fiican daawadana wax badan horta lama soo koobi karo oo cid kasta oo istiraaha daawo keen meel ma soo dhamaystiri karto laakiin cudurro badan oo aad iyo aad ugu faafsan meesha ayaa wax ka tari karta waxaana ugu badan tahay waxyaabaha degdega ah dhigbaha cadiyadinkeeda leh calool xanuunka nabarka hadii ay idinkeeda leeyahay aad waxa u niyeysanaayeen dhibaatadii maalintii dhawaato inagu dhacday ee dadkii dhaawac ahaa iyo hadii ayay markaa maskaxda ku hayeen daawadu waxay u baahan tahay daawo waxay u badan tahay daawooyinkii dhaawaca iyo dhibaatada degdega ah waana mid tayo iyo tiraba kanaacada waa daawadeedii waa la socotaa typhoidka waxa la yiraahdaa shubanka iyo hadii waa la socotaa jadeecada waa la socotaa inkastoo ay talaal tahay laakiin daawada marka dambe ay xumaato jadeecada lagu daweeyo ay feeraha u dhaafto ama sababada jadeecadu ay gaadho kuwa lagu daweyn lahaa waa la socdaan cudur walba daawadiisa meel lagu soo wada ururin karo laakiin waa daawo cudurro badan oo kala jaar ah cudurku ma joogsado mana nasto qofka la dagaalamayo cudurkana ma daalo mana nasto hadaalina oo umada dawada aan baa haysatay hadaalina dawada xageeda ka daalina yactirka isbitaalka oo aragtaan oo hadda channelka ay ku soo doona aragiisa uu dunsan yahay 4400 iyo 1964 yaa daaqad la sameeyo ama hadii la haydankeeda leeyahay albaab la sameeyo ama gidaar la sameeyo ama kororsiimo inta aadamka arkaysan waxa la dhisay 1964 yaa la dhisay ka dambow dadka leheena ee manfaacsanayana kuma soo noqon dawladna ilaahay uma keenin hay'adna ilaahay uma keenin maanta waxaad ogtihiin gobolada Soomaaliya meel kasta waxa ahaadeen waxa gacan qabtay oo kor u soo qaaday dadkooda dibadaha ku maqan isbitaalka dhexe ee magaalada Buuhoodle waxa haatan ka muuqda dayactir la'aan baahsan sida aad ku aragtaan daawada muuqaalkan waxaan looga fadhiyaa bulshooyinka Buuhoodle qurba joogta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle ku dhaqan inay gacan ka geystaan dayactirka isbitaalka Buuhoodle oo goob ahaan bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Cayn waxaana isbitaalku haatan hooy noqday roob ka daaya magaalada Buuhoodle oo iyagu isbitaalka gudaha u galay cali dhaktar telefishinka caalamiga ee